qodobada ugu doorkaroon warkeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada kaga socda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug shirkana waxa uu ku dhow yahay in xal buuxa laga gaaro arrinta gobolka Gado oo xuduun ah khilaafka ka dhashay doorashada dalka haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa laba qodob oo xasaasi ah oo la hordhigay Farmaajo iyo Axmed Madoobe kuwaas oo ku aadan gobolka Gado musharaxiinta mucaaradka oo dalbaday in door ay ku yeeshaan shirka dhuusamareeb iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta warbaahinta kula hadlay Muqdisho isagoo si cad u sheegay in aysan marnaba ogolaan doonin muddo kororsi wararka kale ee daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo ma qaadi doona tallaabo lamida tii Xasan Sheekh Maxamuud uu qaaday faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya weerar culus oo Generaal Xuud uu ku soo qaaday magaalada Beledweyne muxuu yahay khilaaf ka hareeyay batroolka Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday xaalad degdeg ah xildhibaan Cabdiraxmaan oo dawaa oo sheegay in isaga iyo Farmaajo ay isku mid noqon doonaan 8 Febraayo kadib iyo weerar culus oo lala damacsanaa safarada Imaaraadka ee dalka Itoobiya oo la fashiliyay inta si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka like sar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada shirgare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatanna warkii oo fidsan shirka wada tashiga ee ka socda magaalada dhuusamareeb ayaa u muuqda inuu ku dhow yahay in xal buuxa laga gaaro arrinta gobolka Gado oo xuduun ah khilaafka ka dhashay doorashada dalka ee 2021 madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa isfaham bilow ka gaaray xiisada gobolka Gado oo muddooyinkii dambe ay ka taagneyd khilaaf culus dhinacyada ku shiraya dhuusamareeb ayaa isla gartay dhowr qodob oo la rumaysan yahay inay xal u noqon karaan xiisada gobolka Gado taasoo dowladda federaalka iyo Jubbaland ay wada aqbali karaan arrinta gobolka Gado waxaa xalkeeda loo saaray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle si ay xal buuxa kaga gaaraan waxaanay soo jeediyeen in arrintan lagu xaliyo labadan qodob kow in ciidamada booliis amisom la geeyo Garbahaare oo ah magaalada labaad ee Jubbaland ee doorashada ka dhacayso si labada dhinacba aysan awood doorasho u yeelan labo in guddiga doorashada Jubbaland la geeyo Garbahaare si doorashada halkaasi ay kaga qabtaan dhinaca kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa sidoo kale doonaya in maamulka gobolka Gado lagu soo celiyo gacanta Jubbaland taasoo meesha ka saaraysa maamulka dowladda federaalka u sameysata gobolkaasi waa haddii madaxweyne Farmaajo uu aqbalo ciisada gobolka Gado waxay u muuqataa in xalkeeda uu dhow yahay haddii madaxweyne Farmaajo uu aqbalo dalabka haray ee Axmed Madoobe si hore loogu sii ambaqaado hanaanka doorashada xilli muddo ka yar 7 maalmood uu ka harsan yahay muddo xileedka madaxweyne Farmaajo dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo xilliga kala guurka oo weli heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shir jarayd ku qabtay Muqdisho isagoo ay dhinacyadiisa joogaan musharaxiinta ugu cadcad xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in midowga musharaxiinta ay aad kaga xun yihiin in iyadoo weli heshiis aan laga gaarin arrimaha doorashooyinka uu dhamaaday waqtiga dowladda loo asteeyay waxa uu sheegay in xilligani ay ahayd in doorashada madaxweynaha kaliya ay harsan tahay ama uu jiro in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka hasaatee taasi aysan dhicin waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in midowga musharaxiinta madaxweynaha gudoomiyaha aqalka sare iyo ururada bulshada rayidka ay muhiim ahayd inay ka qayb galaan shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka dalka ee ka socda magaalada dhuusamareeb Sheekh Shariif waxa uu sidoo kale ka hadlay muddada xil haynta madaxda dowladda Soomaaliya oo gabagabo maraya waxaan uu sheegay in haddii uu dhamaado wax walba oo la gaarayo ay noqdaan heshiis siyaasadeed isla markaana aysan aqbalayn muddo kororsi qodobka ugu dambeeya inaysan aqbalaynin muddo kororsi aan ku muddo kororsi inaysan marnaba aqbalaynin wax tilaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed waa 4 Febraayo 2021 waxaa muddo xileedka dastuuriga ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka harta kaliya 4 maalin isagoo xiligaasi kadibna noqon doona madaxweynihii hore sida uu dhigayo qodobka 91 ee dastuurka ku meel gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya ayaana ku sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soodonka Janaayo sida madaxweynuhu isaga oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga wuxuu 5 bisha Febraayo 2021 shir degdega isku yeeray xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si uu warbixin uga siiyo xaaladda guud ee dalka iyo gaar ahaan doorashooyinka dalka haddaba
lama oga in uu hadal jeedintiisu ku ilaalin doono awoodiisa fulineed iyo kuwa xukuumadda. In laga hadlo hakinta awoodaha madaxweynaha iyo guud ahaan laanta fulinta ee xilliga doorashada ama kala guurka waxa ay timid kadib markii hore uu sidan u sameeyey madaxweynihii ka horeeyey iyo cabsi laga qabo in Farmaajo uu shaqada iska sii wato xataa Febraayo 8 kadib, sida in uu jago magacaabo, dalacsiiyo, heshiisyo galo ama arrimo kale. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii ay 5 maalin ka dhimneed muddadiisa dastuuriga ah oo ku beegneed 5 September 2016 ayuu soo saaray wareegto ku saabsan habraaca dowladda waqtiga doorashada. waxa uu joojiyey in maalintaasi kadib aanan dhici karin 1 magacaabis ama shaqo joojin sare ee dowladda ama dalacsin saraakiisha ciidamada qalabka sida. 2 lama bedeli karo dhismaha hadda jira ee hay'adaha dowladda oo dhan. 3 lama bixin karo kharashaadka aan ku jirin habraacyada miisaaniyadda 2016 marka laga reebo qarashka 40% ee dowladda ka soo aaday kabka dhaqaalaha doorashada. 4 lama geli karo heshiisyo iyo qandaraasyo cusub oo aanan ka ahayn kuwii hore u socday. sidoo kalena lama geli karo ballanqaadyo qarash. madaxweyne Farmaajo waxa uu bilihii ama toddobaadyadii ugu dambeeyay waday in uu abaalmariyo dadkii ka shaqeynayay ololihiisa isaga oo magacaabay dhowr jago oo muran dhalisay. toddobaadkan ayuu askar dalacsiiyey, waxaana la isweydiinayaa in uu ku dhiiran doono in uu hakiyo shaqooyinkaasi xilliga kala guurka sidii madaxweynihii ka horeeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud. geesta kalena Generaal Xuud ayaa weerar ku qaaday magaalada Beledweyne. wararka laga helayo gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in jabhadda uu hogaamiyo Generaal Abuukar Xuud ay weerar ku qaadeen bartamaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi. weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka u wato Generaal Xuud. ila deegaanka ayaa inoo sheegay in rasaasta laga maqlaya xaafadaha magaalada oo dhan, isla markaasna labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya inuu jiro khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac, balse ma cadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha. xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan, waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa magaalada Beledweyne iyo duleedkeeda. Xuud oo wata maleeshiyaad ku abaabuleen duleedka Beledweyne ayaa si weyn uga soo horjeeda maamulka Hirshabelle ee uu horkacayo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. dhanka kalena muxuu yahay khilaafka hareeye batroolka Soomaaliya? guddiga kheyraadka dabiiciga iyo bey'ada ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen shaaca waxa ay uga qaadeen khilaaf xoogan oo u dhaxeeya iyaga iyo wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya. qoraalka guddiga oo loo diray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu qeexay tallaabooyin ay guddigu sharci daro ku tilmaameen oo uu qaaday wasiirka macdanta iyo batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed. warbixintan waxaan ku eegaynaa 4 arrimood oo ka mid ah waxyaabaha uu salka ku hayo khilaafkan. 1 madax banaanida hay'adda batroolka Soomaaliya. arrintan ayaana ka bilaabatay khilaaf markii hore soo kala dhaxgalay wasaaradda macdanta iyo batroolka iyo hay'adda batroolka qaranka. wasaaradda batroolka iyo hay'adda batroolka ayaa la soo tabiyey in ay isku qabsadeen arrimo la xiriira shaqooyinkooda iyo madax banaanida hay'addaasi. guddiga baarlamanka ah ayaana sheegay in markii uu soo gaaray khilaafka labada dhinac ay durbadiiba ay guda galeen kulamo ku saabsan sidii qaab sharci waafaqsan ah loogu xalin lahaa khilaafkaasi. hase yeeshee ugu dambeyntii bayaan ay soo saareen ayay ku dhaliileen wasiirka. qodobka labaad ee isku hayaan xubnahana ayaa ah xilka qaadista guddoomiyaha hay'adda batroolka. sida uu sheegay guddiga kheyraadka ee golaha shacabka, wasiirka ayaa si aan sharci waafaqsaneyn xilka uga qaaday guddoomiyaha hay'adda batroolka Soomaaliya. warqadan ayaa lagu yiri guddiga kheyraadka dabiiciga iyo bey'ada ee baarlamanka federaalka Soomaaliya oo ku guda jiray kulamadiisii caadiga ahaa ayaa waxaa soo gaartay khilaaf xoogan oo muddo ka dhex jiray hay'adda batroolka Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda oo ku saabsanaa kala madax banaanida hay'adda iyo wasaaradda, taas oo gabagabadii sababtay in xilkii laga qaaday guddoomiyihii hay'adda, xubinnimadii guddigana laga saaray si aan sharciga waafaqsaneyn. qodobo ka mid ah dastuurka oo si gaara u khuseeya kheyraadka dalka ayay guddigu u cogsadeen in xilka qaadista guddoomiyaha hay'addaasi ay ahayd mid aan loo marin sharciga. qodobka 3 ayay ku yiraahdeen heshiisyo uu damacsan yahay wasiirka batroolka. xilli uu gaabis yahay oo waqtiga xukuumadda iyo muddo xileedka wasiirka batroolka waxa ay guddiga kheyraadka tuhunsan yihiin in uu wasiir Cabdirashiid damacsan yahay saxiixitaanka heshiisyo la xiriira kheyraadka dalka sida ay ku xuseen warbixintooda.
ra-iisul wasaare Roble ayana ugu baaqeen inuusan aqbalin wax heshiisa oo ay wasaaraddaasi saxiixdo maadaama uu dhammaad yahay muddo xileedka xukuumadda xilli doorashana lagu jiro. xeer nidaamyaashii sharciga batroolka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya faray in la sameeyo oo aan weli la diyaarin sida ku cad qodobka 45 ee sharciga batroolka. sidaas daraadeed guddiga kheyraadka waxa uu ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kula talinaya inuusan ogolaanin in heshiisyo shidaal la galo si feejiganna uga ilaaliyo in ay wasaaradda gasho heshiisyo caalami ah oo aan waafaqsaneyn danta guud khatarna gelin kara ka faa'iideysiga kheyraadka dalka ayaa lagu yiri bayaankan. wasiirka batroolka iyo macdanta injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed dhankiisa weli kama uusan hadlin arrimahan. halka weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka. maxay tahay xaaladda degdega ah oo ay ku dhawaaqday wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya? wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku saabsan anyaxa lama degaanka ay ku degay koonfurta Soomaaliya oo dhibaato weyn u geysta beeraleyda. mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya oo kulan degdeg ah maanta la yeesheen madax ka socota wasaaradaha beeraha ee maamul goboleedyada iyo hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya wax soo saarka iyo deeq-bixiyaasha ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku saabsan anyaxan ku degay koonfurta Soomaaliya. gobolada uu saameeyay waxaa ka mid ah Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, kaas oo khasaaro badan u geysta beeraleyda isla markaasna horseeday xaalad cunto yari ah maadaama uu baabi'iyay dalagyo badan, taas oo saameyn weyn ku yeelatay qoysas badan oo ku tiirsanaa tacabka beeraha iyo wax soo saarka. xaaladaha roobkii deyrta oo ka hoos maray heerkii caadiga ahaa, daadadkii saameeyay dhul beereedyada iyo xaddiga khasaaraha ay geysteen ayaa dhinaca kale lagu sheegay cilado kale oo badan oo qayb weyn ka qaatay hoos u dhac ku yimid wax soo saarka, taas oo haddaan meel looga soo wada jeesan sababi karta cunno yari intaasi ka badan oo sababi karta halis badan. wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya ayaana ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku saabsan anyaxan ku degay koonfurta Soomaaliya. wasiirka beeraha iyo waraabka ee Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo gabagabadii ka hadlay kulankan ayaana xusay in iyaga oo kaashanaya maamul goboleedyada ay qaadi doonaan tallaabooyin degdeg ah oo lagula dagaalamayo anyaxan oo saameyn aan la koobi karin ku yeeshay wax soo saarka dalka. xildhibaan Odawaano waxa uu sheegay wax dhacaya marka ay dhammaato muddada madaxweyne Farmaajo. xogayaha madasha xisbiyada qaran ahna mudana ka tirsan golaha shacabka Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa ayaa si kulul uga hadlay muddo xileedka madaxweyne Farmaajo oo maraya xilliga u absi ah iyadoo aan weli xal rasmi ah laga gaarin muranka doorashada. Odawaa ayaa sheegay inuusan jirin waqti u haray madaxweyne Farmaajo, isagoona hoosta ka xariiqay in marnaba la aqbaleynin in muddo xileedkiisa ka badan uu ku sii jiro villa Soomaaliya. sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in madaxtooyada aysan asii ahaan doonin madaxtooye haddii uu ku sii jiro madaxweyne Farmaajo oo xilligan oo muddo xileedkiisa ka hartay wax ka yar 7 madaxweynaha haddii waqtigiisu u dhammaado wax waqti ah oo uu haray ma jiro. aniga iyo madaxweynaha dad guryahooda jooga ayaa noqonayna villa Soomaaliya ayaana ruuxeeda isku bedelaysa guri la degan yahay. waxa ay villa Soomaaliya ku tahay waa waqtiga, ayuu yiri Cabdiraxmaan Odawaa. waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha uu xilkooda ku mudeysan yahay waqti isla markaasna ay noqonayaan dad shacab oo guryahooda jooga sida uu hadalka u dhigay. hadalkan ayaana imaanaya xilli ay maalmo kooban ka hareen muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna weli socdaan dadaalo lagu xalinayo muranka doorashada, taas oo uu bilow yahay shirka wada tashiga ah ee ka socda magaalada Dhuusamareeb. ugu dambeyntiina weerar la damacsanaa safaaradda Imaaraadka ee Itoobiya ayaa la fashiliyay. dowladda Itoobiya ayaa xabsiga dhigtay ugu yaraan ilaa 15 qof oo qorsheynaya inay weeraraan dhismaha safaaradda Imaaraadka ee Addis Ababa, sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee wadankaasi Itoobiya. sirdoonka dalka Itoobiya ayaana shaaca ka qaaday in sidoo kale gacanta lagu dhigo hub, qaraxyo iyo dukumentiyo kadib howlgallo ay sameeyeen ciidamada ammaanka. Itoobiya ayaa dadka la xirxiray ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin koox argagixiso shisheeye ah isla markaasna ay doonayeen in ay weerar fuliyaan. sidoo kale bayaankan ayaa intaasi ku sii darayay in dowladdu ay ku sii raajogto ilaa 22 qof oo kale oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin arrinkaas. ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay dhanka Imaaraadka Carabta oo ku aadan weerarkaasi la sheegay in la damacsanaa diblomaasiyiintiisa. ugu dambeyn qoraal ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa ayaa waxa lagu sheegay in sirdoonka wadanka Itoobiya
oo kaashanaya dhigooda dalka Sacuudiga ay sidoo kale u suura gashay inay burburiyaan shabakad koox argagixisa isla markaasna ay fashiliyeen weerar kale oo lagu qaadi rabay safaaradda Imaaraadka ay ku leeyihiin wadanka Suudaan. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii